ninkaygu uu shakiyaa diintu caayaa biil ma bixiyo balaayo dhan baad ku ururisay inay jirtiyeen kalena allahu aclam. haddiise waxaa soo dhami ay jiraan waa musiibo weyn. waxaanaan ku talin lahay inaad waaniso, haddii waanada u aqbali waayana dee ehelka la kaasho. diintoo la caayaana kolley waa gaalnimo, xaaskuna way ku furmaysaa. xaaskii haddii uu ku celceliyo way furmaysaa mar walba. culimaduna dee qaar ka mid a bale markaa uu diinta caayaabay kala tegayaan, tanajazat ilfurqa. qaarna ilaa ciddadaa la sugayaabay leeyihin. almuhim waa mushkiladu weyn. markaa waxaad la kaashan doontaa ehelkiisa iyo ehelkaaga. hadday waxba ka qaban waayana garsoorka arrin miisaan la weeyo on lasfudaysan karin oo lagu wada noolaan karin waxaa hadduu saa u walaaqo. saa daraaddeed meelahaasaynu ku talin lahay inaad la tagto. agoonka ma la garaaci karaa? marka waxyaabaha kale lagala quusto sida caruurtaada aad ula dhaqanto waad ula dhaqmi kartaa. caruurteenna mar walba ma garaacnee marmar baynu wax yar ku dhufanaa wixii xumaa uu joojin waaye. marka agoonka qaacidadiisu waxa weeye sida kuweena aynu la dhaqanno baynu ula dhaqmaynaa. culays gaara saari mayno iyo cadaadis gaara siina dayn mayno oo dee waa ilmo yaroo si aan u anbanin lumin mayno. ilaahayna markuu arrintaa ka hadlaya wuxu uhi wallahu yaclamu almufsida min almuslix. agoonka markuu ka hadlayay alla waan kala ogahay buuri ko ilmaha hagaajinaya iyo ka kharibaya. marka kii hagaajinaya u danaynaya u noqo. waa laga warwareegin marmarka qaarkood hadday kaliftana wax yaroon dhib lahayn waa lagu edbin karaa, sida caruurteenunbuu la mid yahay. ninka walaashay qabaa maxram ma ii noqon karaa? maya. maxramkuu noqonaya waa ka xurmadiisu mu-abad tahay. marka isagana haddii uu imika ku furo iyada furo ay cadad baxdo dee wuu ku guursan karaa. marka dadka kale mooyaane kaasi kuma noqon kara maxram. haddii laakiin fitno laga aamin yahay walaashaana ay la socoto waad iskala safri karaysa, wax dhiboo kaloo jira aanu jirin. ruuxa dumarka ah ee caadada le dharkeedu miyuu nijaasoobayaa? qof kale ma ku tukan karaa? ma daahir ba? haa, waa daahir. rasuulku wuxuu yihi subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus. qofka mu'minka ahi ilaahay baa xumaan ka hufane jirhkiisu ma nijaasoobo. haddaan wax ku dhacay jirin wayse la-aanta iyo jinaabada iyo caadada iyo dhiigga dhalmada iyo waxaasi dee haddaanu dhiig ku dhacay ahayn ma keeno inuu jidhkii nijaasoobay. shay xadath la yidhaahdo cibaadada ka hor joogsanaya unbaa meeshii yaalla mooyaane ruuxaa dharkeeda iyo jidhkeedaba waa daahir. sida la ogsoon yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa waa la jiifsan jiray markaa ay caadada leeyihiin. waxna mu odhan jirin ama ismaydh ama aan ismaydho. hooyaday baa sadaqa bixin jirtay ramadaanta uun afur iyo casho. allaha ka aqbal hadday dhimatay. khayr badanna way samayn jirtay. laakiin way kala duwan tahay adigu waxaad samaynaysa iyo iyadu waxay samaynayso. marka adiguna sidaadaad u samayn kartaa sadaqada, ama ramadaan ha ahaato ama khayrkeedba ha ahaato. wixii wanaagsanna waa la iskaga daydaa. dadkii ay siin jirtay hadduu ramadaantii soo xaadirayo imanayo ha ka goynayna si waa shay khayr leh oo dadku ay u barteen. su-aasha kale waxayd hilibka walqasha ma in la qayrinka lagu qaybiyaa fiican mise in xaafadda lagu cuno? fuqahadu waxay u badinayaan xaafadda lagu cunaa fadli badan. waana iska sii fiicantahay dadka qaarkoodna in qayrinka wax laga siiyo. laakiin waxyaabaha ku fiican guriga in lagu cuno intoo lagu kariyo ayaa wanaagsan bay leeyihin fuqahadu, waayo farxad weeye. dadka kuu soo kordhaybaad ayaa lagu farxayaa. marka in hal goobtii farxaddii la isugu yimaado oo lagu duceeyo oo dadkii ay wax ku cunaan. ilaan dadka halkan imanaya way ducaynayaan akala dacaamakum alabraar wa afdara cindakum asaa'imuun wasallad calaykum almalaa'ika. taasaa fiican. ee qayrinkoo qura in lagu kala diro waxa ka fiican in wax lagu kariya bay leeyihin meesha. su-aasha kale ah sekada dahabka. dahabku hadduu yahay kan xaawalaydu ay isku qurxinayaan intuu doonaba ha gaadhee seke ma leh. kii laakiin kaydka ah hadduu yahay sekaa lagu leeyahy. waxaynu uga jeednaa dumarka qaarkood baa dhowr bedladood iska leh. 2-3 bedladood bay leeyihin, midunbay gashadaan, inta kalena way iska taallaa. intaa taallo waa laga bixinayaa boqolkiiba 2 badh. boqolkii garaam 2 garaam iyo badh ayaa laga bixinayaa. dahablaha yaqaana sida loo sekeeyo. laakiin ruuxa dumar inta ay mar xidhanayso inta caadiga ay ku xidhanayso dhegaha iyo qoorta, gacmaha, fargalladii, shuuliyadii haba waaweynaadeen dhib male.
hadduu laakiin dee israaf ku jiro khalkhaalkii cagaha iyo beelkii iyo waxaa waa laga bixinaya waa siyaada kaas almuhim markaynu soo ururino kan la isku qurxinayo waxba si ka laga bixin maayo qowlka jumhuurka culimadu u badan yihin laakiin ka kaydkaa waa laga bixinaya iyo bedladaha iska yaala wallahu aclam